guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday shirkadda ku guuleysatay dhismaha dhakhtarka weyn ee Hargeysa. waana halkaasi kaga dhawaaqay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen iyadoo ay ku guuleysatay shirkadda Najax Construction Company. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafis sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dhammaan shirkadaha u tartamaya saddexdan qandaraas guddida qandaraasyada qaranka saxaafadda iyo marti sharaftaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. saaka halkan waxaan ku soo bandhigaynaa saddexdii mashruuc ee aad u tartamayseen go'aankii kama dambaysta ahaa isbitaalka Hargeysa waxa uu tartamay oo kama dambaystii saddex shirkadood baa shortlistka ku soo baxay. saddexdaas shirkadood waa Khalaf Construction, Asli Construction, Najax Construction. waxa nasiibku siiyay Najax Construction. geesta kale gudoomiyaha shirkadda Najax Construction Company oo goobta ka hadlay ayaa wuxuu ballan qaaday inay dhisi doonaan dhisme casri ah oo noociisu cusub yahay sidii horeba looga bartay. guddida qandaraasyada qaranka dhammaan tartamayaasha dhammaantiin waan salaamayaa waana idin mahadnaqayaa. marka u horeysa horta mahad Ilaahay baa iska leh. mahad oo dhammi horta Rabbiga u sugnaatay inoo suurto geliyay inuu halkaa intaynu ku tartanno si nabadgelyo ugu tartanno oo si xor ah ugu tartanno oo si cadaalad ugu tartanno aynu ku guuleysano dhammaantood waynu guuleysanay. marka xigana horta madaxweynaha qaranka ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. waa madaxweynihii koowaad ee intii jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay ku suntan barnaamijkan tartanka ah ee guddida qandaraasyada qaranku qabato ee transparentka ah ee cadaanka ah gacanta madow la gelinayo bogoska waxa ku jira alla wax kaaga soo bixi doonaan aad garanay. waxaan filayaa waliba inuu noqon doono madaxweynihii koowaad ee geeska Afrika oo dhan ka qabtay barnaamijkan oo kale. dhowr ka taka dawladeed Afrika kama dhacdo sidan si walba hadaba baadhaan imika oo akhridaan nidaam noocaas oo kale ma jiro. adduunyada horumarka sheeganaysan qaar badan baanaysan oo kale aan sameeynin contractorka guuleysta email un baa soo dhaca adaa guuleystun baa leeyahay inta kalena waxa email kalun baa u dhaco waa laga helun baa leeyahay. marka waa nidaam cajiiba madaxweynaha aad baan ugu mahadnaqayaa. guddida qandaraasyada qaranka oo action u bedeshay ficil u bedeshay siyaasadii madaxweynaha boolisigiisii ayaa waxay u bedeleen iyaguna action ficil bay u bedeleen ilaa imikana waxay ku wadaan nidaamka quruxda badan ee aynu aragno ee cadaaladda ah. insha Allah taala waana ku wadi doonaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa nidaamka cadaaladda ah ee aanan hore u arag ayna tuseen. contractorska kale ee shirkadaha kale ee yimina waxa leeyahay dhammaantood waynu guuleysanay maadaama aynu si dalkeenii oo nabada oo wanaagsan oo cadaalada intaynu halkaas soo fadhiisanay. charge-ku halkaa dubaha yar baan ka helay anigu saa u dhacaya ayaan ka helay waa charge moogtay lagama daba hadlo. marka inaga qudhun dhammaantood waynu guuleysanay qoyad dalkeenu leenahay waynu guuleysanay lan tamuuta nafsun hatta tastakmila li rizqiha inta kalena waa calafun inta soo raacdana waa calaf. aad iyo aad baan idinka ku mahadnaqayaa insha Allah taala. bulshadana waxa leeyahay dayntii shirkaddan ku darayaa bulshadana waxa leeyahay markii hore anagu dhismaha waxaan ku badnayn shicibka iyo hay'adahan dawliga ahayn international NGO-ga iyo hay'adaha waaweynba. imikana alxamdulillah rabbil caalamiin dawladii nidaamka ay sameysay aadna waan ugu faraxsanahay aadna waan uga helay geemkiina waan ku soo biirnay. wassalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. annagu ka shirkad ahaan hadii aanu nahay Najax Construction Company aniga afka shirkadda ku hadlaya ahna gudoomiyaha shirkadda waxaanu ballan qaadaynaa sidii nooga bartay dhismo wanaagsan oo quality-giisu aad u sareeyo oo qurux leh oo bilic leh oo dadka dhiiri geliya inaanu ka dhigno insha Allah taala sidii horeba noo محمد جامع عمال ورك 40 SBC هرقيسة.